Asalaamu calaykum soo dhawaada kusoo dhawaada muuqaal cusub. Waxaan rajeynayaa maalintaada inay ku tahay maalin qurux badan. Haddii ay tahay markii kugu horreysay aanu soo booqato, subscribe noo saar, gambaleelkana furo si fiidiyowyada cusub kuu soo gaaraan. Haddaa hore noola joogtay oo familka iyo asxaabta ka mid tahayna, like noo saar, asxaabtaada noo sii share garee si dad badan ay kaga faa'iidaan. Muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa jadwalka cunto siinta cunuga sanad ilaa iyo 3 sano u jiro. Waxaa jirta hore fiidiyo aan kaga soo hadalnay oo ahaa jadwalka cunuga sanadka ilaa 3 sano quraacdiisa ah ayaa waxaan kaga soo hadalnaa muuqaal hore. Marka muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa jadwalkiisa oo dhameystiran oo ah cunuga markuu sanad jirsado ilaa iyo da'da 3 sano uu ka gaarayo. Jadwalkiisa cuntada ayaan kaga hadli doonaa muuqaalkan. Marka soo dhawaada waxaan rajeynayaa inay ka faa'iideysan doontaan. Cunuga jadwalkiisa cuntada horta maalintii waxaa loo qaybinaa ilaa iyo 3 oo ah maxaa la dhahaa in 3 ugu waaweyn oo ah quraac iyo qado iyo casho, iyo 2 oo ah in maxaa la cunuga subaxii quraacda iyo qadada inta u dhaxaysa mar aad siinaysid, iyo mid kale oo ah qadada iyo cashada inta u dhaxaysa mid kale aad siinaysid. Marka labadan yar oo quraacda iyo qadada inta u dhaxaysa iyo qadada iyo cashada inta u dhaxaysa ma ahna cuntooyin adag iyo aad siinaysid, laakiin waa qudaar iyo faakiho iyo waxyaalahaas inaad siinaysid cunuga. maxaa la dhahaa korinshihiisa iyo jirkiisa u baahan yahay inaad siinaysid waaye. Laakiin tan kale oo ah quraacda, qadada iyo cashada tan kalena 3daas ayaa loo qaybinaa. Marka jadwalkiisa cuntada 3 ilaa 3 sano uu ka gaarayo sanadka ilaa 3 waxay noqonay 5 waqti oo maxaa la dhahaa cunugii uu cunto qaadanayo in u dheer yihiin caanooyinkii iyo maxaa la dhahaa wixii cabitaan aan sii lahayd. Jadwalka tan koowaad horta waxaa waaye cunuga markii subaxii uu waaga bariyo oo cunuga cunto siinay sidoo kale waxyaalaha sokorta iyo bahalka ay ku badan yihiin, waxyaalaha sokorta iyo ku badan waxaa haboon cunuga in aad siisid maxaa la dhahaa maalinta gelinka dhexe ama gelinka dambe oo kale. Laakiin subaxii hore oo kale markuu hurdada kasoo kaco aadan ku bilaabinin. Subaxii hore oo kale cunuga inaad siisid fiican waxyaalaha carbohydrate-ka ah sida maxaa la dhahaa inaad rooti u samaysid cunuga, inaad maxaa la dhahaa ceesh iyo sabaayad iyo bariis iyo waxyaalahaas inaad u samaysid, waxyaalaha carbohydrate-ka inaad siisid cunuga. Haddii maxaa la dhahaa oo iyo maxaa la dhahaa wixii aad ku siin kartid oo kale jadwalka subaxdii ahayna taas noqdo. Waxaa qurux badan oo kale in jadwalkiisa oo kale qadada oo kale maxaa la dhahaa cunuga markaad siinaysid aad ugu dartid borotiinada oo kale sida maxaa la dhahaa hilibka gaduudan, malayga oo kale, doorada oo kale, hilibka shimbiraha oo kale haddaad heli kartid aad ugu fiican yahay ilmaha korinshahooda hilibka shimbiraha. Haddii hilibka shimbiraha uu heli kartid oo kale maxaa la dhahaa waxyaalahaas oo kale haddaad u heli kartid ukunta oo kale maxaa la dhahaa aad ugu fiican tahay ilmaha oo maxaa la dhahaa jadwalkooda cuntada. Waxyaalaha cunuga cuntada caadi ahaan waxaa haboon inuu jadwalkiisa u qaybsanaada carbohydrate-ka cunuga oo maxaa la ugu baahan yahay waxyaalaha uu jirkiisa ugu baahan yahay oo ka qaadanayo energy daaqay wuxuu ugu baahan yahay borotiinaadkan oo cunuga uu ka qaadanayo waxyaalaha korinshaha lafihiisa iyo murqihiisa ay kaga baahan yihiin oo jirkiisa u baahan yahay oo ka qaadanayo, iyo qudaarta iyo faakihada oo cunuga jirkiisa wuxuu u baahan yahay oo ka qaadanayo. Marka waxaa haboon nashawiyaad kaliya ama carbohydrate kaliya inaadan cunuga cunto uga dhigin. Inta badan Soomaalida jadwalkooda marka fiir sidoo kale waxaa arkaysaa in cunuga subaxii hore quraacda canjeerada dadka ay cunayaan gees oo ka cuno, qadada bariiska la karsanayo oo wax ka cuno, cashada haddii oo baasta ama digir iyo reerka ay karsanayaan oo wax ka cuno, oo cunuga asaga dhanba jadwalkiisii uu ku badan yahay carbohydrate-ka cunuga borotiin badan uusan helaynin, fitamiino uusan badan uusan maxaa la dhahaa jadwalkiisa cuntada aysan ku jirin, qudaar iyo faakiha badan cunuga inuusan helaynin oo kale ay u badan tahay jadwalka. Marka jadwalkaas oo kale cunuga korinshihiisa ma anfacayo oo maxaa la dhahaa waa laga qurux badan yahay. Waxaa wanaagsan oo kale subaxii markaa quraacdiisa siinay sidoo kale in maxaa la dhahaa carbohydrate horta ma ka marnaaysid. Haddii oo maxaa la dhahaa rooti u sameynay sidoo kale kan qamadiga oo kale ugu sameysida fiican haddii cunuga uusan ka qaadaynin. Maxaa la dhahaa burka cad waxooga waa laga qurux badan yahay haddii aad ka maarmi kartid inta xad inaad ka maarantid fiican oo maxaa la dhahaa kan qamadiga caadiga ugu bedeshid. Maxaa la dhahaa marka siinay sidoo kale waxyaalaha carbohydrate-ka ah haddii oo ay dhacdo kale inaad ceesh ama sabaayad aad samaysid sidoo kale quraac ahaan aad u samaysid okay waaye. Laakiin waxaa haboon waxa lagu daraayo kale cunuga inay u noqotaa wax maxaa la dhahaa borotiin iyo wax uu ka heli karo kale. Haddii subaxii oo kale aadan u sameyn karin inaa maxaa la dhahaa hilib iyo inaad qado kaga dhigto quraacna kaga dhigto aadan heli karin oo kale axsan waxaa haboon waxa quraacda aad siinay sidoo kale haddii canjeero u dubaysid ama maxaa la dhahaa ceesh iyo sabaayad aad siinay sidoo kale inaad ukun ku siisid. لأن عنق بروتين ونقني أو بروتين وكهلا ما نقني سكر وهيدرات كلية عنق نكوكل عادي مركي أقل سيني سدوك الهدية بريس كريسوكله وجيران وحاهبون إن محلها هلب كجدون أو قدرت أما ملاي أو قدرته هل أنت كلية إنه مفيعنه وأنت بدن عنق مانك استم محلها هلب جيل أما هلب أري وكل عنق مانك استلسيه مق قروح بدنا وحكي قروح عنقي وحيالها بروتين كله هنا أسوق بدشيد وكله
isbuuci 3 maalin ama 4 maalin oo kale kasii hilibka gaduudan laakiin 2 maalin oo kale waxaa kasoo gelisaa malaay usoo geli 2 isbuuc dambe oo kale 2 maalin waxaa usoo gelisaa oo kale doorada waa haddii aadan u awoodin in cunuga maxaa lahaa maalin dhaaf oo kale maanta inaad maxaa lahaa siisid malaay berri hilibka gaduudan xoolaha aad siisid saa dambe oo kale doora aad siisid haddii aysan kuu suuragelaynin ugu yaraan isku day 7 maalin inaadan hilibka gaduudan u wada dhigin oo maalin aad usoo gelisa malaay maalin aad usoo gelisa maxaa lahaa hilibka doorada oo kale cunuga si uu jirkiisa maxaa lahaa waxyaalaha uu baahnaayo dhan korinshihiisa iyo maxaa lahaa jirkiisa wuxuu u baahnaa oo mid walba uu kaga qaato oo hal mid joogto aadan uga dhigin midna ugu haddii hal cunto oo joogto ah ka dhigatid oo aadan bedelinin waxay leedahay in anemia ay kugu keentaa liana maxaa lahaa jirkaada waxyaalo kala duwan u baahan yahay wixii kala duwanaa meelihii kala duwanaa laga heli lahaa adigana ma aadin marka just hal cunto markaas isku koodid oo maxaa lahaa aadan waxyaalo kala raadin waxay u badan tahay in qofka uu anemia ku imaato ilmaha markay yar yihiin aad iyo aad ayay ugu nugul yihiin in maxaa lahaa anemia ay ku timaado marka hooyadoo kale waxaa haboon in haddii subaxii cunugii carbohydrate ay siinayso ugu yaraan hal xabo ukun ee maxaa lahaa ku siiso si maxaa lahaa carbohydrate-kii borotiin u raacay oo noqoto haddii qadadoo kale cunugii bariis iyo baasta iyo waxa u karisoo kale ugu yaraan isku day ayadana borotiin u raacsi sidoo kale waxyaalo maxaa lahaa cagaar iyo ansalaati waxaan ugu dirtid haddii aysan dhici karin oo kale in maxaa lahaa casiir oo maxaa lahaa cabitaan u shiidid biyana aadan kaga dhigin maadaama maxaa lahaa carbohydrate ay ku badan tahay borotiin fiican aysan qadada hilib fiican cunugii maxaa la ilmihii ku filan aysan ku jirin oo kale dhacdo waxaa haboon in maxaa lahaa khudaarta iyo faakihooyinka oo kale u badisid ama cabitaan fiican cunug ilmihii u shiidid si maxaa lahaa waxyaalihii jirkooda uga baahnayeen kaga helaan maxaa lahaa cashadoo kale waxaa qurux badan cunto fudud cunuga dheefshiidkiisana u fudud maxaa lahaa carbohydrate-na aan ahayn oo kale oo borotiin haddii heli kartid oo kale ama khudaar ama faakiho kale hadaa heli kartid inaa casho kaga dhigtid liana ilmaha habeenkii korinshahooda waxaa lasoo dayaa hormoonka korinshaha ilmaha marka haddii cunuga cuntadii oo qaatay uu dheefshiidka uu culeys oo ka dhigayo kale cunto adag aa siisoo kale oo maxaa lahaa habeenka dhan waxaa dhacaysa marka in cunuga jirkiisii uu dagaal kula jiro cuntadan adkeed oo qaatay sida jirka uu burburin lahaa oo maxaa lahaa oo jirka uu kaga faa'iideysan lahaa inuu jirka ku mashquulsan yahay laakiin haddii ay jirto in cunuga cunto fudud ah siisoo kale dheefshiidkiisa aan culays ku ahaynin waxaa laga yaabaa marka in xilli hore intee cuntadii la shiiday cunug jirkiisii ka faa'iideystay hormoonkiisii korinshaha lasoo dayay cunugii maxaa lahaa hurdo fiican u gala dhici karto laakiin haddii dheefshiidka culays oo ka jiro kale cunug hurdadiisa xataa ma saxmayso oo maxaa lahaa cunug hurdadiisa maxaa lahaa xoogoo qalal ayaa ku imaanaya marka waxaa qurux badan cashada cunug waxaa u dhigaysid inay noqoto cunto fudud maxaa lahaa si qalal uusan uga imaanin oo kale hurdadiisii hormoonkiisa korinshahan loo soo daayo oo cunuga korinshiisa u wanaagsanaado marka waxyaalaha 4 saac oo kale qudraacdii qadinta u dhaxaysa ama qadi cashada u dhaxaysid inaa faakihooyin sidoo kale sida ansalaati iyo maxaa lahaa liime iyo maxaa lahaa qudaar aad soo jarjartay isugu dartid oo kale qadadii cashada u dhaxayso kale galabka 10 saac oo kale in ilmihii wax yar fudud siisid inta casho laga gaaro qudaar iyo faakihi isugu darsan ah si cunugii korinshihiisa waxyaalihii fitamiinadii nafaqada uu u baahnaa uga qaato marka haddii maalinta cunugii carbohydrate uu helay jirkiisa ku filan borotiin uu helay faakihada iyo qudaartii uu helay casiiro fiican cunuga u shiidoo kale korinshihiisa uu dhammaystiran yahay wax kaagama baahno ilaa 5 jeer cunuga u baahan yahay sanad ilaa 3 sano uu ka gaarayo 5 jeer jadwal cunto ayuu cunuga kaaga baahan yahay waxaa kaloo jirta cunuga markuu sanad jiro oo asiin kartaa oo kale waxyaalaha ilmaha mamnuuca ka ah intay 5 sano ay ka yar yihiin sida sokor iyo cusbo ina cuntooyinka ugu dirtid oo kale laakiin aadan ka badanin ina malab siin kartid oo kale iyo ukunta qaybteeda cadaanka ah ina cunuga siin kartid oo kale cunuga markuu sanad gaar intaas buu u bilaabi kartaa waxyaalaha mamnuuca ka ah inta sanad uu ku yar yahay oo kale cunuga waxaa kaloo haboon hooyada iyo inay fiiriyaan oo kale maxaa la cunuga qofka hayso ama aabaha cunuga sanad haddii uu jiro kale maxaa la dhahaa ilkihii ma usoo bixin cunugi maxaa lahaa ma gurgurana ama darbiyada ma qabsana maxaa lahaa in cunuga qoortiisa ma cishana marka haddii ay dhacdo in cunugaada 6 bil uu soo gaaro uusan qoorta cishanin oo kale ma ahan inuu kadib dhacay cunuga waxaa la rabaa 4 bil inuu meelahaas 5 bil inuu qoorta cishto oo kale haddii laakiin 6 bil 7 bil soo gaaro cunuga uusan qoorta cishanin ma ahan dib dhac ku imaaday laakiin waxaa laga yaabaa inay cilad kale oo jiro ama wax ka yaala ay jiraan cunuga uu kaaga baahan yahay inaad isbitaal geysid xaaladiisa caafimaad la socotid midna ogow inta uu cudurku cusub yahay haddii aad dhakhtar iyo maxaa lahaa daawo ala raasatid ilaahina baridid waxay u badan tahay in cunuga caafimaad loo helo laakiin mar cunugii cudurka uu ku tarax tagay oo maxaa lahaa meel xun uu gaaray waxaa laga yaabaa in cunuga xaalad aan wax laga qaban karin oo kale isbitaalka ala tagtaa marka waxaa qurux badan waalidka inay fiiriyaan insha Allah video waxaan soo geli doonaa haddii ilaah yiraahdo maxaa lahaa ilaa ay waqtiga cunuga wala dhihi karaa waxaas uu kadib dhaco kale
kasoo qaado kar gurguridka kadib kadib dhacay cunug goormee la dhihi karaa socodka kadib dhaca goormee la dhihi karaa cunug inuu fariisto kasoo dib dhaca goormee la dhihi karaa ilkaha xilliga usoo bixi lahayn kadib dhaca goormee la dhihi karaa cunug inuu qoorta cishto kale xilliga uu la dhihi kara xilligaas uu kadib dhaca waa goormee xilliga la dhihi karaa kale maxaa la dhahaa cunug inuu hadalka uu hadli waayo kale hadalka uu kadib dhaco goormee naqan kartaa in cunug hadalka uu kadib dhacay insha Allah waxaan isku dayaa inaan muuqaalka soo sameeyo oo aan soo gari doonaa isku dayaa insha Allah markii aan jaanis helo marka insha Allah waxaa wanaagsan waalidka inuu cunugiisa la socdo xaqiisa maxaa la dhahaa kurashihiisa isbedelkiisa inuu cunug la socdo si hadii xilliga loogu talagalay cunug uu kadib dhaca waalidkii uu maxaa la dhahaa intibaah u leeyahay oo cunug isbitaal u geyn karo maxaa la dhakhtar caruureed iyo dhakhtar takhasus kale uu la raansan karo si maxaa la cunugiisa uu xilli hore caafimaad iyo wax ugu raadiyo ilaaha caafimaadka insha Allah muuqaalkaas oo isku dayi doona inaan soo sameeyo oo waqti aan u raadiyo soo dhawaada hadii ay tahay markii kugu horeysay aan soo booqataa subscribe no sarga malelkana furo hadii hore aan joogtay like no sar asxaabtadan u sii share garay soo dhawaada